بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waa idin salaamay. Waxaa idin wada maanta waa labada casiir oo hawshooduna aad u yartahay dhib yar laakiin faa'iidada ku jirta ballaaran wuxuuna aad u anfacayaa insha Allah walaalaha saacadaha badan soomaya rabbina yaciinhum. Haddaan ku bilaabo ba'duuniska ama baqduunis kuma aqaan af Soomaali laakiin wuxuu u egyahay kabsar caleenta. Ba'duunisku wuxuu leeyahay vitamin G oo u fiican indhaha, timaha, ilkaha. Waxa kale oo laga helaa folic acid dadka xamligoodu bilowga yahay buu caawiyaa. Sidoo kale dadka ciridka jira mar walba aad ayuu caawinayaa biidnillah. Muuska ama mooska dadka iscaateynaya ayuu aad ugu habboon yahay sababtoo wuxuu leeyahay ama laga helaa nisbo aad u ballaaran oo macdanta potassium. Macdantaas ayaa jirka ka dhamaysa biyaha zaa'id ku ah. Tufaaxa kulligiis waa faa'iido kan guduudan, kan jaalaha iyo kan cagaarka ah. Kan cagaaran ayaa xoogaa ka biyo yar kuwa kale laakiin isaga wuxuu aad ugu fiican yahay dhanka detox-ka oo sunta jirka ayuu dhaqaa. Sidoo kale metabolism-ka kor ayuu u qaadaa. Nacnaacu wuxuu u fiican yahay calool xanuunka iyo dheefshiid xumada. Sidoo kale gooryaanka caloosha ayuu u fiican yahay. Wuxuu kaloo dawo u yahay food poisoning haddii uu dhaco tasamum ghidaa'i. Wuxuu kaloo intaash ku sameeyaa wareegga dhiigga. Kiwi af Soomaali isagana kuma aqaan. Isaguna wuxuu leeyahay ama uu hodan ku yahay vitamin C, manaacada ama difaaca jirka ayuu kor u qaadaa. Inta aan soo sheegnay mid ka rabtid baa ku badsanaysaa adeeg ugu xiranta maqaadiirta. Way isku shiidaysaa baraf iyo malabna waa ku darsan kartaa qofkii rabo. Cabitaanka kale haddaan u gudbo wuxuu ka samaysan yahay isagana aan ku bilaabeynaa tuutka wuxuu u fiican yahay lafaha, ilkaha. Wuxuuna ka ilaashaa ilkaha suuska waayo waxa laga helaa calcium iyo vitamin K. Labadaasna lafaha ayay u fiican yihiin. Farawlaha ama canuuniga waxaa laga helaa alyaaf. Dabcan alyaaftu shaqadeeda ugu weyn waa in dheefshiidka ay saxdo. Sidoo kale farawlaha wuxuu hoos u dhigaa kolestaroolka xun. Ananaaska wuxuu ka mid yahay isagana mudaadaad aksada kansarka ayuu ka hortag biidnillah u yahay. Wuxuu kaloo u fiican yahay qurxatul maacida dadka qaba xanuunkaas caloosha ku dhaca. Sidoo kale dadka iscaateynaya aad buu u caawinayaa. Wuxuu jaraa xeerta jirka. Intaas aan soo sheegnay ayaa biyo ku daraysaa iskuna shiidaysaa. Sidoo kale iyagana maqaadirta adeeg kugu xiran tahay baraf iyo malabna waa ku darsan kartaa insha Allah bilhana wa shifa. Waxaan rajaynayaa in wuxuun aad ka faa'iideen insha Allah. Cabitaanada healthiga ah waxaa si fiican hawshaas ugu jirta walaashay Yasmiin oo YouTube channel leh oo la yiraahdo caafimaad fiican sida meesha ugu qoran tahay. Fadlan channelkeeda subscribe dheh haddii aadan weliga arag. Wax badan baan ka faa'iideysanay walaashan khayr badan Allah siiyo mar walba inoo faa'iideysaa. خير بدن بايدين دافعي أسكوجنا إن شاء الله هدي أدنو عصب تاي فضلا channel سبسكرايب ده سوينا دو ولا لها أنا لسه فضلا أديك أنا فيديو لايك ده سيدوك على فيسبوك بيج كلا صعدوا بحي عصب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.